Heerarka mudnaanta la siiyey ayaa ah waxa uu ardaygaagu u baahan yahay inuu ogaado dhammaadka sannad dugsiyeedka. Waxaan ku hubin karnaa tani innagoo fiirinayna haddii ay horumar ku socdaan, qayb ahaan fahmayn, ama aqoon u leeyihiin. Dugsiyada qaar waxay ugu yeeraan qaabkan ku qiimaynta waxbarashada. Fasalka saddexaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad xaliso dhibaatooyinka dhabta ah ee adduunka ka jira adoo adeegsanaya isku darka, kala goynta, isku dhufashada iyo qaybin. Waxaad ku tusi kartaa inaad taqaanid sida loo isticmaalo xirfadahaaga xisaabta adoo xalinaya dhibaatooyinka sidan oo kale ah. Qoyska Ragow waxay aadeen Olmsted County Fair ayagoo 7 ah. Haddii tikidhka la isku daro oo yahay $21, halka qof meeqa ku bixaysa tikidhkiisa? taas macnaheedu waxa waaye waxaad ka dhex akhrin doontaa dhibaatada ereyga, xulashaada hawlgalka xisaabta saxda ah, kadibna xalin. Haddii Levi leeyahay 4 saaxiibo oo soo socdaan oo uu sameeyay mid kasta oo ka mid ah 3 sandwich, meeqa sandwich ayuu sameeyay? Fasalka saddexaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad soo bandhigto oo aad turjunto xogta adiga oo isticmaalaya garaafyo kala duwan iyo jaantusyo leh miisaamo kala duwan. Tan macnaheedu waxa waaye waad samayn kartaa garaaf oo waad sharxi kartaa macluumaadka ay muujinayso. Xasuusnaaw inaad isticmaasho cinwaanka, calaamadaha xariiq kasta iyo fure, iyada oo ku xiran xaaladda. Go'aanso nuuca shaxanka sida ugu fiican u shaqeeya. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad adeegsato shaxda pie chart si aad u muujiso boqolkiiba fasalka ardayda ka doorbidaya waqtiga firaaqada inay banaanka ku dheelaan iyo meeqo boqolkiiba arday doorbidaysa inay gudaha ku ciyaaraan waqtiga firaaqada. Waxaad u adeegsan kartaa sawir gacmeed si aad u muujiso isbedelada cimilada ee sanadka 2020. Jaantusyada garaafka iyo garaafyada xariiqda ayaa waxtar leh in la isbarbar dhigo waxyaabaha ama hal shay lala socdo waqti kadib. Fasalka saddexaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad isticmaasho qalab lagu cabiro dhererka, waqtiga iyo lacagta. Tani waxay ka dhigan tahay waa inaad ogaataa cabirka aad raadinayso marka hore, kadibna isticmaal qaybta saxda ah si aad u cabirto. Dhirirka waa inta in la eg gees ka gees, waxaana caadi ahaan ku cabirnaa inji ama cagaha. Waqtigu wuxuu noqon karaa saacad cayiman oo maalinta ah. Waxaan sidoo kale eegi karnaa inta daqiiqo ama saacadood ee la soo dhaafay. Qiyaasaha lacagta ayaa muhiim u ah iibsashada alaabta aan u baahannahay. Markaad wax iibsanayso, waad isku dari kartaa qiimaha shay kasta oo aad iibsato oo waxaad heli kartaa wadarta qiimaha doolarka iyo sentiga. Fasalka saddexaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad akhriso, qorto, matasasho, isbarbar dhigto oo aad isku aadiso nambarada ilaa 100,000 ayagoo xooga la saarayo qiimaha meesha iyo sinaanta. Tani waxay ka dhigan tahay inaad aqoonsan karto ugu yaraan 6 qiimayaal meel laga soo bilaabo kan ugu yar ilaa kan ugu weyn. Waxaan jira meelaha nambarada mid ka mid ah
tobanka boqolka meel kumadka kun, tobanka kun iyo boqolka kun. fasalka saddexaad waxaa laga codsan doonaa inaad adeegsato xeelado lambaro jilicsan si aad isugu darto, u kala goyso, iskugu dhufato ama una qaybsato. Tani waxay ka dhigan tahay inaan mushkilad ku xallin karo wax ka badan hal dariiqo isla markaana aan ku gaari karo isla xalka. Markaan ku qabano wada hadal nambar fasalka, waxaan xiiso leh inaan maqalno xeeladaha ay saaxiibada fasalku adeegsan si ay u helaan jawaab la mid aniga. Xisaabku waa xiiso dhab aan tahay sidaas oo kale.